nimankii dhawaan ay soo xirxirtay galmudug kuwaas oo lagu eedeeyay in ay sida arxanka daran ay u dileen hooyada iyo gabadheeda ayaa waxa u soo baxay dad u doodaya isla markaana raba in laga sii daayo xabsiyada ay kaga xiran yihiin maamulka galmudug beesha Saleewaan qaar kamid ah waxgaradkooda oo shir jaraa'id qabtay ayaa ka hadlay arinkaasi waxayna sheegeen in ragii dhawaan ay soo xirxirtay maamulka galmudug ay dileen xubno ka tirsanaa al-shabaab balse aysan dilin dad shacab ah waa sida ay ku doodeen qaar kamid ah waxgaradka beesha Saleewaan ayagoona u qiildayaya in ragii dilay hooyada iyo gabdhaheeda la soo deeyo isbuucii hore ayay ahayd markii hooyo iyo saddexdeeda gabdhood xili haween ah loogu garay guriga isla markaana si arxan daran loo dilay waxayna arintaas ay ka dhacday Galgaduud muddo 24 saac kadib maamulka galmudug ayaa ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan rag lagu tuhmayo in ay dilkaasi ayaga ay geysteen balse muddo laba habeen ay ku bariyeen xabsiga galmudug ayaa waxa soo baxaya eedeemo loo jeedinaya maamulka galmudug isla markaana loo dirayo fariimo kala duwan iyagoona lagu sheegaya in si cadaalad ah aysan maamulkaasi galmudug aysan u maamulin isla markaana ay beegsanayaan dad gaar ah hadaba aan isla daawano qaar kamid ah waxgaradka beesha Saleewaan iyo hadaladooda waxaan ka hadlayaa dhacdadii foosho xumayd oo ka dhacday oo dadka marasta ah oo ku geeriyooday meesha dadna ku tilmaameen maraayo dadna ay ku sheegeen marcaano kullu qof basiba u qabtay dadka ku dhintay waxaan leenahay Allah u naxariisto dhacdo fool xun bay ahayd cid hadda samaysana qabiil iyo qoys midna wax u qaban meeyne wax uu shaydan adeegsaday bay ahaayeen taa markaan ka gudubno dawladda galmudug way u istaagtay way soo qabatay beesha reer xaji Saleewaan aqligooda culimadooda waxgaradkooda dhalinyaradooda haweenkooda waxay u istaageen dadka falka xun sameeyay si fiican loo qaban lahaa miyiga ka goobeen magaalada ka goobeen cirka ka goobeen dhulka ka goobeen waana soo qabteen waxay muujiyeen nasabnimo waxay muujiyeen sharaf waxay muujiyeen dawladnimo inay dawladda heegan u yihiin dalka iyo dadkuna uu sharaf la leeyahay waxa xun ay ka dhiidhinayaan taa marka halka kaga gudbo meesha shartu ay ka dhacday oo u dhaxaysa qaayib iyo xiin dheere waxaan xasuusanahay hadda in shir lagu qabtay xiin dheere in la isugu yeeray magaca duduble beesha reer maxamuud hiraab in shabaab isugu yeeray inuu yiri dhiig iyo dhaqanka Saleewaan waa idin banaan yahay dadka dila xoolahana dhaca guryahana guba waxay lahayn culumo waxay lahayn odayaal waxay lahayn dhalinyaro inta bini aadan leeyahay lahayn waan aqbalay shabaaba u fadwooday ayaguna waa aqbaleen 1400 halaad iyo 4000 oo ari ah bay saddex subax gudahood wareejiyeen xiin dheer la geeyo lagu qaybs xeerad dudubluusa ka foofin lama arko nimankii sifahaas u banaystay dhiigga iyo dhaqanka bini aadamka waliba Saleewaan inta media ka soo hadleen oo soo qayla dhaamiyeen bay waxay yiraahdeen nimankii la soo qabtay sharciga hal la waafajiyo waaga su'aal sharciga ma shalay daraad ku soo dhacay kii ka horeeyay kuma soo ma isal xusuusnayn sharciga shabaab u fadwoodo dhiigga iyo dhaqanka ugu badneeyay wax la xasuusan waayeen oo haddana ay la xasuusan yihiin oo ay leeyihiin nimankii dadka laayay dumarka hal la soo qabto sharciga hal la waafajiyo wixii ayaka wuxuu dhibeen sharciga la geeyo ayakuna aan sharci qaban saas miyay u fahamsan yihiin ma aqaan nimanka marka waxaan leeyahay hadalkiinu daraad iyo maanta waa laba qodob oo is diidan sharcigii shalay aad qaadateen oo shabaab idin faray baaqina aad ku tihiin 97% dadka reer duduble oo ku nool gobolka waxaan ogsoon inuu shabaab yahay dumarkan la laayay annagoo ka xun markaas la laayay ayaguna shabaab bay ahaayeen ninka dhala shabaab awowgood shabaab firkood dhan baa shabaab ah ha ku danteeda ilmo la laayay naagan macna nala lahayn hadday ka soo hadho xerada cidaan ay ku dhimatay 4 qofoodii waxa lagu laayay ilma Axmed Carab Cumar Dhagburo gabar 3 jir ah ka mid ahayd wiil 6 jir ah ka mid ahaa 16 jir baa ka mid ahaa 3 nin baa inta u timid bay saameen dawladda galmudug mana goobin kama hadlin duduble qof ka mid in Allah u naxariistay waa ka xunna ma oran
waxay meeshaas tilmaan u tahay inay raalli ka ahaayeen laynta la dhameeyey qoyska reer xaaji saleebaan. hadda la mid manino bini aadamku isla mid maanaku waa ka xumaanay, dowladdana waa la shaqaynay, waana la soo qabanay dadkii, gacantana waa lagu soo dhigay. ilaahay baa ku mahadsan. waxaan leenahay beeshii odayaasha reer xaaji saleebaan galabta war baa idin furan. warkaasi wuxuu yahay wiilashiinii dhacdadan xun sameeyey hala soo qabtaa tiraan waa laydin soo qabtay, laakiin wiilashii reer maxamuud xiraab oo hor u dhameeyey cidaha baaqi bay ku yihiin gacanta dudbalo xiin dheer xoolaha ku ilaashada. kolley inaad garataan bay ila tahay markaad kuwiina soo xirtaan baa kuwaan sharciga la geynayo mana sharciga la wada saari doono. laakiin waxaad foorfoor dheertiin nimankii aamusoo raalli ka noqday cidaha la laayay. idinku raalli kama aynaan noqon. nasab ahaan iyo diin ahaan iyo dhaqan ahaan iyo ootanimadaba waa ka dhiidhiseen, dowladdaad u amarteen, waa la shaqaydeen, waa la soo qabtay. hadday xiran yihiin kuwii ku dembiga ahaa haddii la soo qabtoo la keeno sharcigaa la wada saarahaya. haddii la soo qaban waayena hadda awal baynan jirin nin sharci qabtay inuusan qaban oo ilmo adeer ah. waxaan warkayga jeclayd ku soo dhawaynayaa odayaasha reer xaaji saleebaan waa mahadsan yihiin, waa shaqaysteen, haddana sii shaqeeyaan leeyahay. wiilashii waa la xira ha uga haranine. ogaada dowladda iyo adinka iyo reer maxamuud hiraab dowladda dhexdhexaad idin ah, xisaabtiina ka qaataan idin leenahay. oo haddii laydinla xisaabtaman xisaabtama, haddii laydinla xisaabtaman diidina wiilashiin ha ka harin raad qaadan idin leen. reer xaaji saleebaan waxay yidhaahdeen dadka dembiilayaasha oo falka foosha xun sameeyey ha la soo qabto. in la soo qabto way ahayd, wayna ku mahadsanaayeen. dowladduna way mahadsan tahay oo madaxweynuhu u sarreeyo oo yidhi ha la soo qabto dadka birmageydada dadkii laayey ha la soo qabto. aaday u mahadsan yihiin, waana soo dhaweyneynaa. annaguna waan ka xumayn, ayaguna way garteen. sidaas taa markaan taa uga gudbo, tan kale waxaan leeyahay reer maxamed camal nimanka la yidhaahdo ama duduble la yidhaahdo ama saba maaragta markii lasoo gaabsho nimanka xiin dheere degan iyo xagarey degan oo reer maxamed camal la yidhaahdo waxay ka hadleen oo midiyaha ka sheegeen dadkaas dad barmageydaa inay ahaayeen, dad lagu xadgudba inay ahaayeen, waxaan reer xaaji saleebaan iyo duduble lahayn inay ahaayeen. waxaana jiray dad badan oo barmageyda ah oo ninkii shiiqa ahaa iyo wiilkiisii ka mid yihiin, maxkamadda gobolkana mas-uulka ah, galmudugna ay taqiin, reer maxamedna ay yaqaaneen, reer xaaji saleebaanna ay garanayeen. ninkaas wuxuu ka mid ahaa iyo wiilkiisu dad mirageyday. qofay usoo qabteen iyo waxay ka hadleen iyo qofay la wadaageen midna ma jirin. sheekh nadiir buu ah. waxaa ka mid ahaa dadka barmageydada ilma maxamed cumar dhagburo nimankii ahaa, islaamaha ku jiray, ilma sakiiraha ku jiray, niman dhalinyaraha ku jiray oo sakiira iyaguna ardaha qur-aan dhiganayey. waxaa ku jiray ninka la yidhaahdo dad qoysaska lahaa. qoysaskaas 2 qoys bay ahaayeen. meeshaasay kusoo afjareen nimankii gacan ku dhiiglayaasha ahaayoo iyagu maaragtay joogay oo nimankaas laayey xiin dheere iyo maraayo iyo meegudlay joogaan. hala soo qabta ma aanan maqal. dowladda galmudug wax kama qaban, reer maxamed camal wax kama qaban. saleebaan ninka la yidhaahdo in loo soo qabto sida ayagu ay yeelaan manaasibadu aheyd waa ka horeysay. ayagoo sidaas u garanayo odayaashayda ama dadka dhalinyarada ama culummadayadu ay waxay inay barwo u dhigaan ay ilaahay dartiis uga baqeen oo waxay yidhahdeen maanta meesha waxaas wax la fiirsan kara maahan. horta arrintaas in lagu dayday u baahan tahay. annagu marka waxaan leenahay ha soo qabteen reer maxamed cabal sida odayaashayda uga qayb qaateen oo culummadeeda uga qayb qaateen oo dowladda galmudug uga qayb qaabatay. hadda waa beenowday galmudug iyo shabaab isuma tegi karaan iyo duduble iyo galmudug isuma tegaan. duduble galmudug oo ka mid yahay dalka dhuusamareeb gobolka dhuusamareebeed laga xukumo ka mid yahay. 11kii ninka la yidhaahdo qabiilo galmudug ku midaysnaa bay ka mid yihiin duduble meel gooni kama imaan. dowladduna inay u tegi karto daraada caddaato waa tii ninka la yidhaahdo maraayo iyo meesha la yidhahdo megaag caraale iyo meesha la yidhahdo oodan iyo dahartii tumxoolood ninkii yaqaan baa garanaye waa kuwii ninka la yidhahdo dowladda galmudug madaxriyihii shabaabay kor u dhaafeen. haddii marka daacad loo yahay oo ra'yigaas daacad loo yahay oo nimankaas sida daacad loogu in la raadso daacad loo hayo reer maxamed camal daacad ka noqdaanoo ninka le dowladdu galmudug daacad ka noqoto madaxweynuhu iyo xibnaha ka hooseeya iyo xildhibaanada iyo wasiiradu ay daacad u raadinayaan sidaasoo kalea loo soo qaban karaa. kamana shisheeyaane way ka sokeeyaan hadda intaan tilmaamay kuwii gacan kudhiglaasha dadka laay. waxaa ka mid ahaa kuwii ariga iyo nimankii iska lahaa qoysaskooda isku afduubtay oo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel oon u garanayno la yaqaan way joogaan. weliba xataa kuwaas waxay joogaan baraagta qaran iyo ninka la yidhaahdo ciinlo iyo meesha la maraayay degan yihiin annagoo qof u naqaan. dad birmageydahay ahaayeen colo kuma darayn.
tuugaysan mayn gurigooday joogeen ninka la yidhahdo qof ay xaqiiqabeen lama arag ayaga iyo xoolahoodii inta la isku wata ayagiina la gowracay xoolahoodiina xalaal laga dhigtoo la qalimaysta sida odayga horeba u sheegay marka waxaan leenahay dadkaasi bermageyday ahaayeen waxaa ka mid ahaa arrintii hadda toddobaadkan gudihiisa ninka hadda la qabanayo ina gacan leeyahay hooyadiis lagu dilay oo duduble ay yiraahdeen raalli aan ka baxayna xataa aysan dhihin oo ninkii xataa berle ogo asaga gabdhihiisu dileen oo islaamiyiisu dileen oo asaga wax ka dilay oo raalli ahaansha iyo magaciisa ka bixin oo qoyskooda oo la yiri reer gacan baaldheer waa ka mamnuucan yihiin mana soo day karaan mana imaan karaan mana joogi karaan kuwii ayagu ku xafiltamayo baraagahoodii iyo xoolahoodii iyo tantidoodii iyo berintoodii banaystaan la yiri baaldheer ay milka ku ta ayagoo loo adeegsanayo calanka madooba shabaab oo duduble ku shaqaysanayo loo adeegsanayo marka waxaan leenahay anagu arinta dhacdooyinka noocaasa madaxweynuhu dadka ka soo bilowda oo galmudug oo booliska hadda wax raadinayo ugu hooseeyo iyo boliisku ha sinaadiyeeno qabiilada galmudug ha sinaadiyeeno dowladda mas-uul ka taha ha sinaadiyeeno ha keeneen nimankaa gacan ku dhiglayaasha kuwan waa xiran yihiin waa ku mahadsan yihiin kuwa kale ha ku soo dareen maxkamadda ha la wada saaro ninka wax lagu helo ama ha lagu toogto ama ha laga xal wadaago ninkii wax lagu waayaana asagaa iska tegi doona dadkaas qoran oo gacan ku dhiglayaasha oo la garanayo oo reer maxamed camala oo jooga oo dadka magaalada ama caruurta ama dumarka ama dhalinyarada ama odayaasha ama culummada ama dowladda macnaha ku lahaa ama diinta islaamka macnaha ku lahaa dilay dadkaas ha la keeno xaajigii inuu heliyo guure oo hadda soo xoji axmed uu heliyo guure iyo ninkii la joogo oo macalinka ahaayo inuu nuur qamaanaha nimankii dilay way joogaan waa la yaqaan waxay joogaan meegaag hoosle iyo caraxun iyo dalle inta ka dhaxayday joogaan waa niman dudublaho reer maxamed camalaho jooga jufa iyo qabiil iyo qoshqoshaan u naqaan ha la keeno birmageyday ahaayeen inuu dad dhibo oo dad islaamid ku dheelmado oo shiddo waa ka soo xajiyeen ninkaas qaan laguma lahayn in ilaahay darti u joogu ahaa quraankiisu akhrisaayay kanuna hadda macallin uuba ahaa nin wadaad oo iska macallin oo magaciisu asaga u shaqeynayo barkadooda oodanayo abtigii la shaqeynayo ah nimankaa dilay ninkaas dowladda galmudug kama hadlin culummada duduble kama hadlin odayaasha duduble kama hadlin reer maxamed qasuusan haddana kuwii jufada ku ahay kusii qaaskaha kama hadlin reer cunshuur helowlaha haddeer annaga gabdhahooda naloo haysto lagu xirayo nimankan lagu xirayo nimankan qaatilaan dileen bay ahaayeen kulligood iyo kuwa iyo ninka la reer maxamuud nuur nimanka le waa kala naqaan dudublo qof aan u naqaan annagu waxaan leenahay marka in marka saleebaan hadduu qabar dilo iyo hadduu gabar dilo iyo hadduu oday dilo la qabto dowladdu qabato reer maxamed camalna aan la qabanayn ama qabiilkii kaloo hadda saleebaan wax ka dhiba macno ma samaynayso waxaa macno samaynaya kuwaan in la qabto kuwa maqanna lasoo qabto kuwii inuu heliyo guure iyo wadaadkii la socod dilay lasoo qabto kuwii dilay ninka la yidhaahdo sheekh indadiir dilay lasoo qabto kuwii dilay ninka la yidhaahdo ilma axmed carab iyo qoysaskoodii afjaray lasoo qabto kuwaan isku miis la keeno shareecada islaamka la marsiiyo wixii ay ku yeeshaan lagu qaado haddii macnaha dowladdu sidaas baa macnuhu annaga naguna wanaagsan yahay hadda gacan ku dhigyaala aan difaacayno ama hadda aan qarinayno ama hadda maaragtay dambiga galan aan ka fuudaynayna ma jiro laakiin waxaan rabnaa dalka galmudug reer xaji saleemaan dadka reer galmudug 11 qabiilo galmudug ku midaysan in reer xaji saleemaan lala mideeyo aan aysan macnuhu u ekaan galmudug inay reer xaji saleemaan qaban karto dadka kalena aan gacantoodu qaban karin ama aysan macna ninka la yiraahdo ayadoo aysan la xisaabtami karin inuu ekaato lama rabe in dadku sinaada la rabaa sharcigu waxa la rabaa inuu sinan yahay xukunku inuu sinan yahay dadka in wax loo sino shaqada galab nimankii qabtay nimankaas ama daraad galab qabtay hadda la xisaab ku hadda kadib dambi gal qaban doona kuwa ha soo qabteen miiska ha la keeno hal ninka la yiraahdo ha lagu qaado shariicada islaamka qofba waxa yeelataa lagu xukumo marka koobaad dadka meeshaan fadhiya waa reer xaaji saleebaan waxaan aan ka hadlaynaa dhacdadaas waxay ahayd oon muslimka la qabnaa dhacdo aan wanaagsanayn oon islaamka dhexdiisa ku habboonayn inay tahay oon u aragna waan caddaynaynaa marka labaad waxaan caddaynaynaa inay jirtay meeshaas waxay ahayd meel baadiye ah oo go'doonaho dowladda galmudug iyo adeegyadoodu aysan gaarin oo wacyigelintu gaarin oo dad reer miyiya ay degan yihiin oo ay isku cadowsadeen oo reer maxamuud hiraab iyo reer xaaji saleebaana dhibaatada marka meeshaas ka dhacday waxay ahayd dhibaato soo laalaabatay waxaan caddaynaynaa inay marka dhibaatadaasu aysan ahayn mid tan kaliya ku kooban
ee ay ahayd dhibaato soo socotay waxaan caddaynaynaa inay ka timid dhibaatadaasi reer maxamuud hiraab oo ay dadka degan meeshaas oo ay galmudug markhaati ka tahay oo reer xaaji salaamaad marag ka yihiin oo dudubloo dhani markhaati ka yahay oo dadka dariska nala degan ay og yihiin in intaasoo dhacdo oo midaan iyo mid ka sii darana inay meeshaas ka dhacday waxaan marka rabnaa maantay reer xaaji saleebaan iyo dowladda galmudug waxay isu kaashadeen dadkii falkaas sameeyey oo dhacdaas sameeyey la soo qabto annagu marka waxaan doonaynaa ninkii dembi galay maadaama in la soo qabtaa ay abbaaran taho sharcada islaamka iyo dhaqanka ay ku abbaaran tahay waxaan rabnaa dadkii meeshaas wada deganaa oo reer xaaji saleebaan iyo reer maxamuud hiraab ahaa dhibkii reer maxamuud hiraab ku dhacay oo reer xaaji saleebaan ka dhacay waa laga daba teg dhibkii reer xaaji saleebaan ku dhacay oo mar aan ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn oo afar ahayn oo reer maxamuud hiraab geysteen oo goobtaan dhibku ka dhacay asaguna ka dhacay oo aan laga daba tegin asagaan daba joognaa waxaan rabnaa in sababta ay kii saleebaan ka dhacayna loo daba joogo midkii reer maxamuud hiraab ka dhacana uu u fasaxan yahay waxaan rabnaa inaan dowladdu ay jawaab naga siiso in innaga dhiigga nagu u bannaan yahay reer maxamuud hiraab in dowladda galmudug ay ra'yigaas qabto iyo in reer maxamuud hiraab nimankii ka dhashay oo dembiga galay oo sida raggaan u tiriy haddeer sheekh cismaan maxkamadda ninkii joogi jiray oo qaadiga maxkamadda ahaa oo sheekh cismaan ahaa iyo wiilkii la jooga macallinkiisa uu dhalay oo ilmo axmed carab cumar dheg buro labadii wiiloo yaryarka ahaa iyo gabadhii iyo hooyadood laysku kor dilay oo ninka la yidhaahdo xaajigii axmed weheliye guuroo xajkii ka yimid iyo wiilkii macallinka ahaayoo oo cabdi nuur maxamuud ahaa ay ka mid yihiin oo ay ka mid yihiin nimankii daahir geney daahir axmed qooryarey iyo maxamed maxamuud cawaale maxamed maxamuud jaamac samey ay ka mid yihiin oo 600 oo neef oo aryaho ayagu ay la joogteen ayagii laysku watay oo saacaddan haddeer arigu uu 3 iyo 4 uga soo baxsaday xeryahooda nimankan hadda dhibku ku dhacay intaas waxaa ku xigtay nimankan haddeer la soo qabtay dhibkan wuxuu kow ka kacay gabdhaha nimanka dilay mid ka mida gabadhii uu qabay waxaa kufsaday nimankan hadda ay ka dhasheen gabdhahan habeenkii dhibkan u dhacay habeenkii 3 ka ahaa 3 gabdhood oo reer xaaji saleebaanaha laga watay guryahoodii nimankan rag ka mid ahaa qabay qaarkood 3 saac oo subaxna waa la soo daayay sida naloo sheegay nimankaasaa haystay niman ciidan aha afduubtay waa kufsadeen dhibaatay u geysteen barqii dambena waa soo daayeen nimankii dabagalay dhibkaas markii raggii waayeen dowladda ay u dacwoodaana ay waayeen waxay la noqotay 20 jir waxaa la yidhi intuu geedka bowtala ka boodaa waxay la noqotay inay ku xanaaqeen kuwii ay arkeen arrintaas marka waxaan ka rabnaa dowladda galmudug oo madaxweynuhu u horeeya waxaa leenahay madaxweyne 12 qabiilaad waxaad u tahay garsoor oo madaxweynahoodii tahay waxaad aan kugu taageeraynaa qofkii dembi gala in la soo qabto oo sharciga la hortaago laakiin waxaan kaa doonaynaa sida aad reer xaaji saleebaan tilaabta uga qaaday waxaan kaa rabnaa oo adigana ku hor taallo xujo kugu ah oo reer xaaji saleebaan kaaga fadhiyaan intaan inaan soo tirinay inaad soo taagtay nimankan meesha laga soo qabtay joogaan nimankaa dil inaad soo qabato sharciga soo hortaagto intaasaan kaa rabnaa waxaanaan aqbali karin oo reer xaaji saleebaan haddaan nahay aanaan aqbali karin in annaga amniguna qabto sharciguna qabto maxkamadaha nala saaro dembiga nala ka gudo wixii naloo geystana aan waxba laga qaban karin ma aqbalayno mana aqbali doono madaxweyne waxaan kaa rabnaa xaquuqda annaga dhuusamareebaa nala ku dilay oo ganacsadana lagu laayay waxaa lagu dilay wadooyinka cid naloo soo qabtay ma jirto haddeera xaajiyaasheenni in la dilay garsoorayaasheenni in la dilay birimageedeenni in la laayay aan caddaynayna waxaan doonaynaa madaxweyne
xuquuqda dadka nala ka dilay oo nimanka reer maxamuud hiraab naga dileen oo goobtaas anagu nimankaan ku dhinteen naagahan ku dhinteen gabdhahan ku dhinteen ayaguna ay lagu dilay inaad maxkamadda noo soo taagto waxaan kaaga digaynaa oo dawladda galmudug uga digaynaa oo ummadda dawladda Soomaaliya uga digaynaa sharci dhinac u raran oo annaga kaliyana qabanaya cid kale oo nala wadaagto lagu qabanayaan aysan jirin annagu ma aqbalayno mana aqbali karno namana qabto dawladda annaga qayb ka mid ahaan nahay 12 qabiil ka mid ahaan nahay wixii dambiyo annaga dadkeeni lagu helay waa maxkamada lagu geynay waa la qabtay haddii sharciga annaga kaliyana la saarayo no waan leenahay no war miyaan aqbalaynaa in kaliya sharciga nala saaro miyaan aqbalaynaa annaga in haddii ilaahay ku rooday cid aan ahayn sharcigu qabtaa aysan jirin waxaan doonaynaa dawladda galmudug sharciga sida annaga uu noo qabanayo inuu u qabto dadka kaleeto oo dambiilayaasha xaajiga ninkii iyo wiilkii macallinka ahaa raggii dilaan rabnaa waxay joogaan baalal dheer iyo meesha la maraayo waxaan rabnaa nimankii ilmo Axmed Carab Cumar Dhagburo nimankii laayay in la soo qabto sida kuwaan loo soo qabtay annagu ma oranayno kuwaan maxaa loo soo qabtay waxaan leenahay kuwii dilay garsooraha kuwii xaajiyaasha dilay kuwii xaafidu quraanka laayay in la soo qabto kuwii gabdhaha kufsaday waxaan idin sheegaynaa hadda ninka gabadha laga dilay gabdhaha laga dilay ninkan nimankan la soo xiray nin kamida shabaab buu ku dacweeyay shabaabna waxay ka xukumeen baraagtiisa iyo deegaankiisa waxay yaacay ma soo dhaafi kartay asagoo awoodda al-shabaab u isticmaalaya برليق نيك اللي يراو أو قبلها هذا ويكدنتين وحو قعني عبد الله محمد كديو سوكعي أسوأ الشباب كدعويني وود الشباب استعمالي وحرنا مركز دت كانت دولتنا واوين الدنيا كو إنقاذيين دت قرصورة واوين مركز فراه تاجينا والله قبطي هذا قبشة الديدي مني دت كي دنبك كجلي أو ضلك جوجا أو مش أي رئيس قبطي جوجا إلا السوق قبطه أو شرع الهرك أنا كي عندونينا هديك ليتو حالكم مدحوين هذو كويا لا dadka adan madaxweyne u ah inaad nin fasaxdanina aad sharciga geedana ma aqbalayn hadii aad daabatay hadallada qaar kamid ah waxgaradka beesha Saleebaan waxa kaaga baxay aragtidaada inoogu reeb qaybta faalada hadii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaaray muuqaalkeena subscribe inoo dhig gambaleelka furusay ku soo gaaray muuqaalada kale ee xiga hadii aad subscribe inoo tahayna muuqaalka laga inoo saar noo share garay si uu gaar asxaab badan wad ku maasantahay daawashadaada